ma isdhahaysay madaxweyne Afrikaan oo dal soo maamulay muddo 10 sanadooda ayaa Afrika run u sheegi doona waliba xaalad marka la joogo maanta yaabkeeda leh oo dad fara badan ay isweydiinayaan mar raba sheekada inaan kaaga hordhaco laakiin ninkan ayaan rabaa inaad si fiican u fiiriso hadalkiisana aad dhageysato waxa uu leeyahay You don't pay taxes in America. He's appealing to his people. Shauri yenu bana. Soo laabta mar kale. Ninkan aad u jeedaan waa madaxweynihii hore ee dalka Kenya, Uhuru Kenyatta. Waa wiilkii Muse Jomo Kenyatta ee dalkaasi ka noqday madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada dheer maamulayay oo isagoo xilka haya geeriyooday. Ninkanna waa wiilkii uu dhalay ninkaasi oo isna 10 sano Kenya madaxweyne ka soo ahaa. Uhuru Kenyatta waxa uu leeyahay waydii ugu dambeysay waxaan arkayay madax badan iyo dalal fara badan oo Afrikaan ah oo qayladaan afka furtay oo dhahaya ninkii Donald Trump ahaa ayaa naga jartay lacagihii uu na siinayay su'aalo badan ayuu isweydiinayaa waxa uu leeyahay war horta Donald Trump dalkiina ayuu madax ka yahay Afrikaanay ma isaga ayaad canshuur bixiyaal u tihiin mise shacab Amerikaan oo Trump madax ka yahay oo maamulo ayaad sumoodeen waxa uu Trump sameeyay waa arrin fiican ahaydin noqoto buu leeyahay wake up call baraarug haydin noqoto faham badan qaata haddaba marka la fiiriyo ninkan hadalka uu jeediyay madax badan iyo dalal badan oo Afrikaan saameynta arrintan ku yeelatay warbaahinta adduunka sida u falanqeynaysay arrintii Trump iyo dhaqaalihii uu caalamka ka jiray waliba Afrika waxa ugu badnaatay mustaqbalka wadamo fara badan oo Afrikaan oo walaac laga muujinayay iyo hadalkan madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu jeediyay ayaa rabaa bal inaan isugu ka akhriyo barnaamijkan kadibna aad ku fiiriso nolosha dalka aad ka soo jeedo ee aad adigu leedahay ayadii ugu dambeysay caalamka waxa ka taagnaa markii Trump uu talada la wareegay walaac fara badan oo dalal fara badan oo Afrikaan ku dhacay waxa ay ka walaacayeen lacagihii kabka ahaa ee Mareykanku uu siinayo oo la joojiyay kadib markii Trump uu hore u sheegay halka dollar ee Mareykanku uu bixinayo waa inuu 3 su'aal ka jawaabo waa kow awoodda Mareykanka iyo waliba ka kanaantiisa muxuu ka gali karaa barwaaqada Mareykanku muxuu ka gali karaa iyo sidoo kale dakhliga iyo Mareykanka waxa soo galaya muxuu ka galaa halkaasi dollar haddii 3 su'aalood midnaba aanu ka jawaabi doonin waa micno daro qarash ku baxaya in la sii bixiyana sax maaha Mareykanka iyo Trump ayaa sida ku gardhigtay arrinta walaac fara badan ayuu ku qabatay dalal fara badan oo Afrikaan ah waxay isweydiiyeen haddii dhaqaalahaasi la idinka jaro ee taageeradii Mareykanku ay siinaya aad weydaan sida hadda dhacdo la weynayaba maxaad filanaysaan walaaca aad qabtaan iyo noloshiina iyo adduunyo noocee ah ayaad wajahaysaan laakiin Uhuru Kenyatta oo ah nin guri madaxtooyada ku soo koray aabihii madax ahaa isagana muddo 10 sano dalkiisa madax ka soo noqday isla markaana faham buuxa ka haysta waaqica nolosha iyo hadallada diblomaasiyadeed iyo sida loo fasiray intaba waxa madaxda Afrikaanka ay ku yiri Afrika waad hurdaysaa ka waxa aad aaminsan tihiin iyo waxa adduunka ka jira wax la qaadan karo haba yaraatee ma jirto sababtuna waxay tahay waxa leedahay Mareykanka ayaad naga jartay lacagihii uu ina siinayay wuxuu yiri bal aan idin weydiiyay ma Donald Trump ayaad shacab u tihiin haddii aad tihiin madax Afrikaan ah mase waxaad tihiin shacab oo canshuur bixiyaal Amerikaan oo iyaga mudnayd in loo adeego Trump uu idin adeegay maxaad siisaan waxa uu sidoo kale yiri bini'aadamku waxa fiican garaadkiisa iyo garashadiisa iyo qofnimadiisa iyo jiraalkiisa iyo waliba dawladnimadiisa iyo dalkiisa inuu fahmo kadibna uu ka shaqeeyo waxa uu isagu yahay yuusan ismoodin in isaga loo shaqeeyo talaabada Mareykanka uu qaaday iyo waliba Donald Trump waa mid aad u wanaagsan ayuu yiri waliba ha idin noqoto baraarug waxa soo socda ayaa ka weyn waxa aad hadda aragtaan han noqonina buu ku yiri madaxda dalalka Afrika kuwa indhow garada waxa hor yaala iyo waxa reerahooda ka dhacaya iyo waxa u muuqanaya kaliya arka
noqda buu yidhi kuwa iyaga meelo fog arka oo hiigsi leh isla markaana noloshooda maanta aysan u muuqan nolosha jeelasha iyo mustaqbalka iyo isbedelada waaweyn adduunka dhacaya ay u muuqato dib baan rabaa hadalkan inaan hadalku ugu xiro oo aad fahantaba ninkan odaga ah waxa uu bannaanka keenay inay sax yihiin in kale adiga iyo garaadkaada bal fikira kadibna xoogaa waqti qaatay waxaad tirahdaan ninkan ina Kenyatta waa nin qiyaali isaga jira ma waxaad tiraahdaa Afrika qiyaali ku nool kadib baad ogaanaysaa waxa laga hadlayay yoolka iyo ujeedka iyo abaarta ay leeyihiin intaba marka aad fiiriso adduunka waxa ka dhacaya waxa la isku haystaa garaadka macmalka ah ayaa dal hebel soo saaray oo ka badiyay dalalkii hore wixii ay haysteen kadibna shirkado waaweyn iyo dalal ayaa balaayin dollar qasaaray maalmihii ugu dambeeyay 24 saac ee ugu dambeeyay warbaahinta reer galbeedku waxaas ayay tabanaysay halka madaxda Afrikaanka qaarkood la dhahayay shirkado ajnabiga ayay boqolaal kun oo dollar siinayeen si dal hebel uu taageero kuwa kalena boqolaal milyan ayay bixinayeen si madaxweyne hebel uu dalkooda u gaaro Aasiyaana laakiin markii aad ka fikirto garaadkii macmalka ahaa ayaa lagu loolamayaa tiknoolajiyada ayaa meel fog laga gaarayaa madaxdii adduunka ayaa baratamaya oo is haysta da'yartoodii cabaaqirada ahaa ayaa soo saaraya waxyaabo muhiim ah runtii aad bay muhiim u tahay tusaalaan rabaa bal inaan dib ku celiyo sida telefishinka Al Jazeera uu goor dhow wariyay Donald Trump waxyaabaha uu ka mamnuucay adduunka waxa kamid ah in injirka galmada loo isticmaalo waliba aan sharciga ahayn lacaga malaayiin dollar dawladii Joe Biden ay ku bixisay oo qasal geeyay aqlaaqda saliimka marka inta ku cabirto waxaad u jeedaa waxyaabaha qaar ee Trump uu leeyahay waan joojinay meelaha qaar inay sax ahayd sidaas ay leeyihiin dadka aqlaaqda iyo suluukiyaadka iyo discipline-ka ka hadla waxay leeyihiin sax bay ahayd sababta qasal loo geeyay maxay ahayd dooda ugu badan ee qalin maalka carabta aqoonyahanka iyo taxliilayaashu ay falanqeynayaan waxay leeyihiin ujeedadu waxay ahayd taranka reer qasaba in lagu joojiyo lacagtaas 50 milyan ee bacdaas ama injirkaas lagu soo iibiyo si xaddiga iyo taranka loo yareeyo oo la yiraahdo carruurta hal kala fogeeyo dhalmada hal adreemi karta waxyaabahaas oo kale marka lacaga waxaas oo kale lagu bixinayay iyo waliba fasahaad akhlaaqeed meelaha qaar in laga joojiyo waa dood maangala oo imaanaysa laakiin ka waran dawladda la rabo in la iska biilo oo dhaqaale la iska siiyo kadibna qaraaraadkooda maalmiga ah loo yeeriyo